ceelkan lagu qoday degmada Yeed ee gobolka Bakool ayaa ah mid aad loogu baahan yahay magaaladu ma laha ceel riig ah ama meel ay biyaha ka cabaan oo ku filan markii laga tagay ceelal biyoodyo yaryar oo ku yaala magaalada kuwaas oo biyahoodu aysan ahayn kuwa nadiif ah xildhibaan Maxamed Jaamac Mursal Gelle oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dadaal badan ku bixiyay sidii ceelkan loo hirgelin lahaa ceelkan ayaa hadda waxaa la gaaray biyihiisii hase yeeshee weli looma samaynin meelihii biyuhu ay xooluhu ka cabi lahaayeen sida darka ama meelihii kale ee ay dadku ka dhaansan lahaayeen biyaha ceelkan injineeradu waxay sheegeen in biyaha ka soo bixi doona ay ku filan doonaan guud ahaan dadka iyo dunyada ku dhaqan gobolka Bakool gaar ahaan degmada Yeed deegaanada hoos imaada waxaan dareemaynaa ceelkan caawa hadduu dhamaado ilaa 200 kilomitir isku weera inuu kabar garaynayo baahida biyaha gaar ahaan degmada Yeed inuu haddii alla yiraahdo lagu guuleysanayo oo dhibaatada oonka wax badan ka yareyn doono waxaan rajaynaynaa xagga aqoonta marka aan kala hadalno annagu waxaan injineerada qaranka Soomaaliya badalka ceelkan hadda gacanta anaga ku hayna kabaniga saafi oo qalabkan iyo equipment-kan baan la shaqeynaa iyaga laftoodu inay ka qayb qaataan oo xoolahooda iyo tabartooda keenaan si ceelku u sii noqdo kii laga faa'iideysto umuraadkii laga gaaro xildhibaan Maxamed Jaamac Mursal Gelle ayaa u mahadceliyay guud ahaan dadkii ka qayb qaatay qodista ceelkan wuxuuna sheegay in dadaalku uu yahay sidii dadkani ay biyo ku filan u heli lahaayeen asagoo ugu baaqay qurba joogta iyo dhalinyarada ka soo jeeda deegaanada in ay dhisaan deegaanadooda isla markaana ay dadaal ku bixiyaan sidii magaalooyinkan loo soo nooleyn lahaa biyaha ceelka halkan waxaan rajaynaynaa in maartay ugu yaraan 100 kilomitir ku dhawaad ay reer miyigu ayba maartay dhinac walba uga arooraan oo ma dhawo meeshan biyo kama dhawo 50 kilomitir ka badan bay xaggan dhinacan ceel barda aata uga sokaysa dhinaca kalena de maba dhawaba ilaa gudahaas inay dhinaca kale u gudbaan maahe marka waxa weeyaan biyahan aad baa loogu baahi beeli doonaa waxaan rajaynaynaa inuu wax fiican ka qaban doono mustaqbalkana ceelal kale la qodi doono waxa u baahan yahay mashruucan in biyo gelin magaalada lagu sameeyo oo ceelka laga jiido tubooyin si water supply stations oo dadka bini'aadanka ay ka cabaan magaalada dhinaceeda loogu jiido xooluhuna ay halkaan ceelka u soo arooraan ceelku wuxuu yeelan doonaa darar ay xoolaha ka cabaan oo ka kooban ilaa 2 ilaa 3 dar iyo water tankigii weynaa ayuu yeelan doonaa generator house iyo wuxuu yeelan doonaa maartay waardii qolkiisii inta uu yeelan doonaa marka waa mashruuc bilow ah bilowgaana hadda waa guul ceelka hadda waa laga biyo gaaray 130 mitir buu marayaa biyihiisi waa la arkaa laakiin hoos baa loo sii wadaa oo waa la dheeraynayaa inta biyo ku filan laga helayo aad iyo aad baa u mahadsantihiin mar kale iyo mar kaleba jaaliyadda dibadda ACF iyo Horn of Africa Care for Others iyo ikhtiyaartii kale maartay qurba joogta ahayd maartay talo iyo kulahayd aad iyo aad baan runtii uga mahadcelinaynaa Abdullahi Aadan TV Universal degmada Yeed ee gobolka Bakool